gudoomiye ku-xigeenka ahna kusimaha barasaabka ay wehliyaan dibaanada golaha deegaanka degmada Boorama ayaa maanta soo kormeeray habsami socodka qaadashada kaarka waxaana ka hadlay goobaha ay soo mareen iyo waxay kala soo kulmeen xildhibaanada golaha deegaanka la socday kusimaha gudoomiye Axmed Nuur Diiri Cabdilaahi Xoosh waxa daladoodii kamid ahaa inay ka qayb qaataan kaar qaadashada warqadda codbixinta maanta ayuu qof kasta ay haystaa jaaniska 14 cisho ay noo bilaabmay maadaama 5 cisho hore soo maray way noo soo dhamaatay waxaynu bilaabaynaa 14 cisho ee dambe degmada Boorama la isku soo ururiyay dhexdeeda 6 goobood oo kamid ah lagu soo ururiyay sanaadiiqdii degmada Boorama dhamaantood marka waxaanu leenahay shacabka degmada Boorama ku dhaqan iyo ka gobolka Awdal dhamaantii Sayidaac Baki iyo Boorama iyo Lughayaba 4 degmo waxaanu leenahay ka faa'iideysta maalin maxaan ku raadsaday 14 maalmood ee maanta ka bilaabmay si aanu jaaniskaasi inoo seegin oo go'aankaaga u dhibato oo bari waxaad ku codayso aanad waayin diyaar hadhowha cabanina cidii qaadan weyda ama aan leeyma siin ama maxay hayday meeshii leeyma sheegin meel kasta boorku ku qoran yahay waxaan leenahay kaarka hal la qaato qolada salaadiintaana waxaan leenahay dadka wacyi galiyaan xaafadaha looga soo dareero hadhow cidii caban lahayd iminka kaarku waa in diyaar 14 cisho ama baadiye joog ama buur joog oo maanta kaararkii codbixinta ay ka qaadanayaan 8 meelood ilaa 10 meelood oo ah deegaanada iskuulka Abuqays Waraqa Holholka iyo Aashacado iyo deegaanada galbeedka oo dhan soo galay oo dhan ay maanta halka ka qaadanayaan run ahaantii waxaan dadweynaha reer Boorama annaka iyo waftiga hogaamiyaha kusimaha gudoomiyaha gobolka Awdal aan baa ugu dareynaa war 5 cisho hore calaacal iyo walwal bay nooga dhamaatay eedeedana commissionka lahaban lahayn laakiin maanta eedda commissionka ma lahayn kale 14 cisho haysanaa Baki Lughaya iyo Sayidaac dhamaan way yaalaan kaarka codbixinta way yaalaan commissionka baa diyaaradina wajigii labaad ee kaar bixinta codbixiyaasha waxaan kormeer ku mareynay dhamaan goobaha gobolka Awdal ay ka socoto kaar bixinta codbixiyaashu runtii dadku si wacan bay u qaadanayeen dhamaan goobahan soo marnay waxaan ugu baaqayaa shacabka gobolka Awdal dhamaan inay ka qayb qaataan oo ka faa'iideystaan muddada 14 cisho ee dambe ay socoto runtii 5 cisho hore si wacan bay dadku u qaateen oo nabadgelyo waxaan shacabka ugu baaqayaa mar labaad iyo mar saddexaad inay qaataan kaarkooda codbixinta oo ay soo doontaan aad iyo aad waan ugu mahadnaqayaa commissionka doorashooyinka qaranka oo runtii isku xilqaamay dadaal dheeraadana muujiyay muddadii ay socotay aad iyo aad baan mahadsantiin TV qaranka oo mahadnaqaynaa Adar Caafi TV qaranka Boorama